Vocabularies waa maxay? Erayga cusub. Why did you choose me? Sababta ii dooratay. Choose erayga waa maxay? Erayga choose waa maxay? Choose waa maxay? Choose waa maxay? Doorasho. Soo ma? Why did you choose me? Why did you choose me? Very straight. What's wrong, man? What's wrong with you, please? Why did you choose me? Sababta ii dooratay. Choose erayga waa maxay? Doorasho. Choose maxaa loo isticmaalaa? Doorasho soo ma? Why did you choose me? Sababta ii dooratay. I did not choose you aniga kuma dooranin. Did not haddii la yidhaaho waa simple past oo negative sentence ah. Waa jumlad diidma ah. I did not choose you kuma dooranin aniga. I did not choose you aniga kuma dooranin. You adiga waa choose waa doorasho. I did not choose you kuma dooranin aniga. But laakiin waa maxay? Laakiin af English maxaa lagu yidhahaa? But but waa maxay? Maxaa loo isticmaalaa? Laakiin the teacher chose you. Macalinka ayaa ku doortay Joss. Doorasho. Marka hore choose maxaa Joss loo yidhi? Waa past perfect. Hello, what do you do? Joss ayna tale. But the teacher chose you. But the teacher chose you. Laakiin macalinka ayaa ku doortay. But laakiin because it's forbidden or mamnu. He and forbidden. Hadii lagu weydiiyo mamnuuc afka qalaad waxa lagu yiraahdo. Afka dictation. Afka qalaad waxa lagu yiraahdo. Forbidden area waa mamnuuc way. Waxaa jirta maama ay leeyso forbidden fruits. Forbidden fruits past this week. Waxaad barato waa baaska forbidden. Forbidden fruits. Forbidden fruits past this week. Waxaad barato waa baaska forbidden fruits past this week. Waxaad barato waa baaska forbidden fruits sana. Forbidden sidoo kale waxaa loo isticmaalaa mamnuuc. Forbidden fruits miro la xalaaleeyay. Dadka waxay ku leeyihiin iskuul maxaa ay ku dhimaan. Wadaad miris loola jeedo waxaad barato waa baaska ay loola jeedo. Haddii aad u barato inaad caajiso, caajis lama markaas. It is forbidden waa mamnuuc. Forbidden waa maxay? Mamnuuc. Wuxuu yidhi why did you choose me? Sababta ii dooratay. Because you are the best student in our class. Maxaa yeelay waxaad tahay arday ugu wanaagsan. Best ugu wanaagsan. Ugu wanaagsan. Hay arday ugu wanaagsan marka name macalay. Best teacher. School ugu wanaagsan. Best school. Marka best ergas waa maxay? Ugu wanaagsan. I am the best ka. Waxaan haystaa gaari ugu wanaagsan in the world. Example I have in the world. Ugu wanaagsan in the world. Marka why did you choose me? Sababta ii dooratay world caalamka. World. Why did you choose me?